الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. waxaan sii dul taagi doonaa aayadda suuratu al-imraan ku sugan 5 ilaahay baa wuxuu amaanada ku amaanay qaar yahuuda kamid ah wa min ahli alkitaab man inta'amanhu biqintarin yu'addihi ilayk wa minhum man inta'amanhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima wa amaanada akhlaaqda la yiraahdo wanaagsan in yaroo kamid ah ساين أركينو كتاب كين القرآن كوا كتاب الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. مربى موضوع أيين قادنا إلى أمته وكل صيّة شيء قال الله هذا أمانة وعجيب وي خلق الأمانة إنسان كأمانة الله لو أمانة هي أمضوى هدي لجوا أنا إنكار دعوة أمانة أمر بين الله إلهي وإن أمري نوعية ذا كلا الدول وعين سمر إن سورة البقرة آخر كذا إلهي وأوحو إن أمرين إن أمانة سيئة أوفلينه فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانة دي قاركين بقارك كلا أمنا قف كل أمن أمانة دي أهل كذا هجرس هجتو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمر هذا إلى هاي بحري أمانة إن الله خيامين إهل كذا لجارسية القرآن كان كريم كي أمانة وحكوا أمانة ملك الجبريل وحكوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكوا أمانة أمة المسلمين وحكوا أمانة حتى قال كي يهوده كملها والعدالة في القرآن وأمة وقب بدن القرآن كوالو يهود حتى نكودي أمانة هاي إلهي وأمانة قال كدلو قرتي سسيوي وحي وناقة إلهي وأقره سبحانه وتعالى صفة سوى ونكسن درادي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلهي مؤمنين تكو أمانية وذلك بلنتو دي أمانة ذو إلالية أمانة صداء وقفك وقو أمانية إدنا واللي هدو أمانة تشبيه أمانة دي إيمانك إسكحرا سيد النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له حديث حسن كان إيمان بما لقف كان أمانة له أصلا وحي أوتها أمانة الآن منافق نمو منافقا محاط المامي سكمدها وإذا أتمنى خان هدي لا من أو خيانية مركا أستان بأن نقطة إيمان الآن بل أستان وحي أن نقطة آخر زمانك marka ummadu leexatay waxiga ka leexato calaamadaheeday ka mid noqon doontaa ummadda amaana darradu in baa nabiga sallallahu alayhi wasallam tasaaca wuxuu nabigu ku jawaabay alayhi salatu wasalaam idha duyat al-amana fantadhir as-sa'a mar hadii amaanada la dayaco amaanada khaaska ah iyo tacaamka labadaba de qiyaamadu wax kale ma jire shayga la yiraahdo amaanadu waxa weeyaan marka taariikhda eegto anbiyada iyo awliyada ilaahay iyo xataa qisaska qofka amaanada uu qoray taariikhda ummadu waxay ku galaan amaanada iyo ashkhaastuba nabigeenu sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa uu ogaa takhasusaadka ilayhi takhasusaadkooda qofba meel buu ku sii baacbeera iyagoo sifooyinka wanaagsan wada leh asxaabta waxa kamid ah asxaabi tobankii jannada loogu bushaareeyay kamid ah oo la oran jiray ayo Abu Ubayda ibn al-Jarrah nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummati Abu Ubayda ummadu waliba waxay leedahay nin amaanada calanka u sida Abu Ubayda ummadan calanka u sida amaanadeeda amaanada ninkaas ugu amiis Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo markuu madaxda Abu Ubayda ardu Sham uu madax ka ahaa futuuxaadku halka ka sameeyo jihaad ku waday daacun baa ka dilaacay kadibna uu la xajacla uu ka qaba amiinka daraadeed ayaa uu yeedhay wuxuu degdegii soo gaar hadaad joogto iyo hadaad jiiftaba galin horiyo galin dambe habeen iyo maalin
waxaan kaa codsanaya inaad degdeg igu timaado arrin adag baan kuu leeyahay Abi Cubayda markay warqadii gaadhay ee uu akhriyay qoraal buu dib ugu soo celiyay wuxuu dhaarta adigu adkaysay iyo ballanta iyo amarka iga kala yaree waxaan ku sheegayaa qof Ilaahay si wada baajin kari maysid markii loo keenay warqadii Umar uu akhriyay waa ilmeeyay waxa la Abi Cubayda miyuu dhinto ma uu ku dhow yahay inuu dhinto marka jawaabtu soo siiyay waxa ahayd dad baad igu aamintay dadkaas uma wax la qabaya geeri iyo nololba dunya iska dhaaf dad baad igu aamintay qof dad wax lagu aaminana dad baa ugu qiimo badan junuuda iyo colaalka muslimiintu ma wax la qabaya ayaama kadib waa kii daacunkii ku shahiiday taariikhda marka aad eegtay iyo taraajimka culimada salafuna saalix dadka amaanada la si gaar ah loo xusi jiray Abu Hanifa rahimahullah oo kamid ahaa qolihii madaahibta inoo qoray waaweyn afarta kii u horeeyay taabici ahaa nin bay shuraaka ahayn la oran jiray Bishr ninkii buu safar u dhiibay 7 badladooda xariira Masar buu uga soo iibinay markaa Bishr xaggaas uu jooga alaabta cid buu ugu dhiibay xabad baceeb lahayd badladaha cid baceeb lahayd oo calaamad buu sameeyay waraaqdana uu ku qoray wuxuu taa qofka ka iibinaysa u sheeg khiyaamaya inagu noqonin ninkii la wiilaawo 7kii badladood baa wada socodsiiyay ninkii buu weydiiyay kolkii dambe wuxuu alaabtii aad iibisay aan ku calaamadiyay ceebta lahayd ma u sheegtay kii iibsado mayeebu meesha khiyaama ku soo gabatay wixii oo dhan waa wada sadaqaystay isagu qaybtii ku soo hagaagtay farci iyo asalkiiba macnaha raasamaalkii iyo faa'iidadii labadii waa sadaqaystay macnaha waxay sheegaysaa taasi siday u xalaal miiran jireen salafuna saalix mar walo qofku amaano uu leeyahay ba islaamka iska gaalada ku jecel waxa jiray Sacuudiga ka dhacda filaya laba dumar ay ahaayeen oo la wada qabo ninba mid buu guursaday xaaskiisii ka dambeysay oo miyara uu yara qarsaday wuxuu isriyaan lagu soo helay way jiraan rag qaar ku soo dhoomanaya oo isiraaday maaragtay tooreye ka dudina ma caroon xaaskiisii hore way ogaatay laakiin way sheegin isagana uma sheegin iyadii uu la guursadayna uma sheegin inay ogtahay xaaskiisa dambe iyo ninku waxay moodayaan weynadu inaan waxba ogeyn ninkii qadarkii baa ku yimid oo uu dhintay marka ooridiisii hore qof muuminada bay haydo dhaxalkii bay soo qaaday oo gabadhii bay taqaanay guriga lagu qabaabay taqaanay arrimahaasi horowga ma qarsoomaan dumarkee raadaar bay leeyihiin soo qabteen ya kabaraday leeyihiin siyaadaha iyo dhish baa ugu xidhan markiiba way soo heshay oo dhaxalkii bay u geysay waxay tiri ninkii xaaskii hebel Soomaad ahayn taasay tiri maxaa jira waxay tiri walaal waan ogahay in layna wada qabay qarsoonayde dhaxalkaagi waa kan eego qof aaminay moogti way ku amaananta tii kalena waxay tiri walaal waad mahadsantahay khayr Allah ku siiyo waajibkaagiina waad gudatay laakiin uu ifrayo dhaxal kuma lihi marka dhaxalkan adiga ala in wada qaybsan lahayn iska qaado taariikhda saasay ku galay wax wanaagsanna way dumarkana ammaan bay u tahay waliba kuwa la wada qabo waxaynu leenahay casrigan amaanadii aad bay u adkaatay amaanadii maalka iyo amaanadii madaxtinimada iyo amaanadii sirta wixiiba way adkaadeen khiyaamadii baa badatay qofku way gaarsiin baaba ka dhacdayba iyo aakhira danteeda maxaan anagu dunya qaataa taasa ka dhacday xaraantiiba waxay noqotay waxaan la arkay xaraantu ma waxay noqotay waxa la arkay xalaashuna waxay noqotay waxaan la arkay oo qofku waxaan la arkay inuu cid kale ogeyn haddii uu arko waa iska qaado iimaanka xiri lahaa baa yaraaday waxaynu isku waaninaynaa tilmaamaha iyo dhaqanka wanaagsan quraanku ina siinayo inaynu qaadano oo amaanada aynu ogaano casrigan aqoonta waxa ka muhiimsan amaanada dadku markay xoolahooda cid u diranayaan qofka waxa la eega aqoontiisa markaas haddana la eega amaanadiisa marka hadduu aqoon leeyahay oo aanu amaano lahayn cidima qaadato laakiin hadduu aqoontiisu yarto oo aanu amaano leeyahay wax laga yaabo in la qaato bal ama aqoontu marka ay khiyaamo wadatay amaano la'aan tahay khiyaamadaas aqoontu khiyaamadu bay u adeegtaa oo qofka jaahilka ah aqoonyahanka khaayinka ka khatarsan
sida waxa loo shaxay sida waxa la isu weydaariyaa xariif ku yahay marka ummadeena ubadkeena ehelkeena iyo ummadeena iyo madaxdeennaba aan arinta isku dabagalno aan isku ogaano aan isku waanin allahna haynagu hanuuniyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh